السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waan idin salaamay asxaabta sharafkeena ku xiran. Ugu horeen dadka qaar meeshan markay joogaan maba fahamsanaba. Walaal halkan lacagta soo diraysa ka dooranaysa halkan. Lacagta soo diraysid ka dooranaysa. Ku dhufo horta marka hore EFC Plus soo diraysa tusaale. Kadibna halkan lacagta lagu diraya ka dooranaysa. Halkan lacagta lagu diraya ka dooranaysa. Halkan lacagta lagu diraya ka dooranaysa. Toon camal ka dooranaysaaba. Waxaa kana toon ama toon kiibar isku hal waay. Tusaale meeshan meeqa toon oo dollar rabtaa. Hadda $3 oo toon rabtid, $4 toon hadda rabtid, $5 oo toon rabtid. Wax walba dollar ku sheegay. Yacni dollar ahaan ay isticmaalay laakiin hadhowti toon kiibar inta dollar ku noqonayso inta toon ay ku noqonayso ay akoonkaada ku soo dhexeyso. Tusaale $5 meeshan ay ku qortay EFC Plus $5 soo dirowaa lacagta meeshan ku qoraysid waa lacagta soo diraysid. Kadib $5 ma soo diraysid waxaa $4.76 ayaa helaysaa akoonkaada ku soo dhexeyso. Ma fahantay? Ayaa akoonkaada ku soo dhexeyso. Kadib markaas dhahdid waxaa taabanaysa halkan ay ku qoran tahay exchange. Exchange taabanaysa. Ma taabanaysid halkan dhan ka leexo. Meeshan dhan waxaa ku qoran. Ma fahantay? Halkan exchange taawo. Halkan exchange taawo. Halkaas exchange taabanaysa. Ma fahantay? Tusaale waa ku sii lacag walba oo halkan ka rabtid waa ka sarfan kartaa. Sidaas la yeelaysa. Kor waxaa ka dooranaysa hadda waxa waaye toon aad ku shubanaysid waa. Toon magaal bixaysid halkan kore waxaa dooranaysa toon. Waa la bixaysaa halkaas kore lacagta la bixaysa dooranaysa toon. Halkan hoose waxaa dooranaysa lacagta lagu soo dirayo. Oo EFC Plus ma ula bixisa. EFC Plus, Telesom, Golis dhamaan hadda la bixisid way ku jiraan. Waxaa kana $5 oo toon soo diraysa $4.85 oo EFC Plus ah ayaad helaysaa. Waa inta walaal. Ma fahantay? Inta hadda soo ma fahmay yacni lacag walba oo rabtid sidaas loo isticmaalaysaa. Tusaale lagu siinayo TRX, USDT, WAFI aad ku soo diraysid sidaan kor u wareysaa. Sidaas korkaas u wareysaa lacagta meeshaas ku jirta waa qoraynayso. Waa ka mid intaas lacag ku jirta. Intaas lacag ayaa ku jirta Premium Mobile, Perfect Money, Bayer iyo Litecoin iyo Hedgemaster, Golis iyo eDahab iyo Dogecoin iyo WAFI iyo BNB, Smart Chain iyo Binance iyo OneSbit. Lacagaas dhan waa ka sarfan kartaa. Hadda tusaalaha kugu soo qaatay. Lacag walba oo rabtidna sidaas la yeelaysaa. Lacag walba oo rabtid sidaas la yeelaysaa. Ma fahantay? Wax oo dhib ah ma ahan dadka qaar wax oo dhib ah u maleeyaan. Wax dhib ah ayay u maleeyaan dadka qaar laakiin dhib ma ahan. Okay. Hadda $5 EFC Plus soo diraysa $4.76 helaysaa. Waxaana ku dhufanaysaa halkan ay ku qoran tahay ku dhufanaysaa exchange. meel kale ma taabanaysid exchange oo guduudka ku dhufanaysaa. Ma fahantay? saas ugu dhufanaysaa. meeshan yacni marmar saan kuu soo qoraa emailkaada iyo passwordkaada iska diiwaan geli. Haddaadan hore iska diiwaan gelin register taabanaysa. Hadda hore iska diiwaan gelinin register taabanaysa kadib iska soo diiwaan geli. Ma fahantay? Register waa tan hoose ku qoran tahay ma jirtaa register. Hadda meeshan emailkeena gelinayna halkan hoosena passwordkaada fadlan ay hilmaamin. Haddaa hilmaamtin forget password iska dheh. Hadda akoonka usaa automatic ay gali magaa wax dhan oo saxay. Kadib meeshan toon address loo dhahay. Walba toon address waxa laga wadaa macnaha address lacag lagu soo dirayo. Hadda la bixaysidna wuxuu dhahaa EFC Plus ka lacag lagu soo dirayo ama Telesom kaada ama Golis kaada. Receiver taabanaysa halkaas. Kadibna copy ku dhufanaysaa. waa soo qaadaysaa addresskaada lacagta lagu diri lahaa waaye. halkan bast ku leedahay. Kadib waxaad taabanaysaa confirm exchange taabanaysaa. Ma fahanteen? waa kana kadibna midkan emergency ana lacagta ku diraysaa. Si lacagta loo diro nambarkaada soo qabso kadibna garaac. saan dheh meesha waxa oo lagu dirayo waa soo copy gareey
meesha lacagta lagu diraayo imaaw sidaan nambar 789 xidig kadibna merchant geli kadibna lacagta $5 geli 4 gees dheh kadib okay dheh kadib pinkaada geli lacagta markaad soo dirtid oo bashqada kuu soo dhacdo bashqada screenshot ka soo qaad screenshot markaad ka soo qaadid halkan oo just file gelinaysaa ma fahanti just file gelinaysaa halkan nambarka lacagta ka soo dirtay gelinaysaa ma fahanti waa intaas waxaan rajeynayaa inaad fahantay meeshaan video soo dhigi doonaa oo markii qaybtan la joogo sidii lacagta loo soo diray insha Allah waqti ina dheeraada diida. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.